sheekha caanka ee u dhashay dalka India ee wacdiya Zahir Naik ayaa bartiisa Facebook soo dhigay qoraal uu wiilkiisa ugu raadinayo gabar uu guursado. qoraalka sheekha ayaa waxa la socda waraaqo ay ku qoran yihiin macluumaadka wiilkiisa iyo shuruudaha laga rabo gabadha uu la doonayo wiilkiisa Faariq. سمسمي سلامت سماها جعلي صومالي دو ايدل وقتي ويوها ايدين وعنادو هلكات ساني قد على عنيسان وصحاف جنال ساعد قف وليبو انت يوتاي سوسارونا وانيغا وديار قرو مقال عصب مقال كان الدوا ديال وحا كسابسنها شيقا عانكا ودا شي ودنك اندي زهير نيك ايا وحا uu gabar u raadinaya wiilkiisa laakiin waxa uu ku xiray shuruudo aad u adag maxay tahay shuruudaha uu ku xiray gabadha uu wiilkiisa u raadinayo masuuragal baa in shuruudaha qof ka soo baxay ama gabar ka soo baxaysa la helo taa iyo in ka sii badanayd muuqaalkan ku daawan doontaan haddii alla weyna laga helo xuquuqda qoraalka muuqaalkan waxa iska leh BBC laanteeda afka Soomaaliya sheekha caanka ee Zahir Naik ayaa gabar u raadinaya wiilkiisa balse shuruudo ayuu ku xiray in ay ku sifowdo gabadhaasi haddaba muxuu yahay shuruudahaasi uu soo bandhigay sheekhan caanka oo dunida oo idil si wanaagsan looga yaqaano sheekha caanka ee u dhashay dalka India ee wacdiya Zahir Naik ayaa bartiisa Facebook soo dhigay qoraal uu wiilkiisa ugu raadinayo gabar uu guursado. qoraalka sheekha ayaa waxa la socda waraaqo ay ku qoran yihiin macluumaadka wiilkiisa iyo shuruudaha laga rabo gabadha uu la doonayo wiilkiisa Faariq. waxaan xaas u raadinayaa wiilkayga Faariq. waxaan u rabaa gabar muslimada oo suuban oo leh akhlaaq wanaagsan si ay wiilkayga iyo xaaskiisa u noqdaan laba qof oo midba midka kale u sheega wanaaga. sheekha ayaa waxa uu intaa ku daray haddii aad tahay aabaha ama qaraabada gabar aad u malaynayso inay shuruudahan buuxin karto sidoo kalena ogolaato inay ka war doonto arrinkan waxaan si khushuuc leh kaaga codsan lahaa inaad ku soo jawaabto qoraalkan macluumaadka dheeriga ah ee loo baahan yahay. Faariq Zahir Naik oo dhashay 10kii bishii July sanadkii 1994 oo dhererkiisu yahay 170 sentimitir ku nool dalka Malaysia ayaa shuruudaha gabadha loo raadinayo waxa ka mid ah 1 inay tahay gabar muslimad ah ayna ugu dhaqanto sida ay diintu farayso 2 in sunnada ay u adeegsato inta karaankeeda ah 3 in luqadda Ingiriiska iyo Carabiga ay taqaano 4 in ninkeeda ay ku dhiirigelin karto dadaalka dacwadda 5 inay xaafidul Quraan tahay 6 in ay diyaar u tahay in ay Malaysia degto 7 in shahaadada koowaad ee bachelor degree ay ka haysato diinta Islaamka 8 inay dhageysatay dhowr daaci oo ku wacdiya luqadda Ingiriiska iyo qaar kale oo ku xusan warqadda hoose ee uu soo qoray Dr. Zahir Naik. haddaba shuruudahan ayaa waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa aad u adag markii loo eego dumarka adduunka ku nool in gabadha ay taqaano Quraanka oo dhan ay xifidsan tahay shahaadada baajkana ay ka haysato diinta Islaamka waxay u baahan tahay in muddo la raadiyo sida ay qaar ka mid ah shucuubta caalamku cadeeyeen. haddaba waa kuma Zahir Naik qaabka adag ee Zahir uu u adeegsado diinta ayuu waqti dheer muran ka taagnaa. dad badan oo Al-Qaacida taabacsan oo la xiray ayaa saraakiisha u sheegay inuu saameyn badan ku lahaa. inuu dalka Britain galo ayaa laga mamnuucay sanadkii 2010 waxayna ku sababeeyeen dabcigiisa aan la aqbali karin iyo khudbadihiisa sida ay waqtigaasi sheegtay wasiiradii arrimaha gudaha Theresa May. si kastaba ha ahaatee waxay indhaha caalamku qabteen bishii Luulyo ee sanadkii 2016 kadib weerarkii darnaa ee lagu qaaday maqaayadda Holey Artisan ee magaalada Dhaka. warbaahinta Bangladesh ayaa sheegtay in mid ka mid ah ragga weerarkaasi geystay uu ka shidaal qaatay khudbadihiisa. qaybihii dambe ee isla bishaasna Bangladesh waxay mamnuucday BSTV. bishii November ee sanadkii 2016 hay-adaha argagixisada la dagaalanta ayaa cabasho rasmi ah ka gudbisay Zahir iyada oo ku eedeysay in uu faafinayo nacayb diimeed iyo howlo aan sharciga waafaqsanayn. Zahir ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay waddanka Malaysia
waxa uuna u soo wareegay Malaysia sanadkii 2017. Su'aasha ay dad badan isweydiinayaan ayaa waxay tahay suuragal ma tahay in diktoorka uu helo gabadha uu u raadinayo wiilkiisa shuruudahan adag uu ku xiray gabadha uu wiilkiisa guursanayana ma laga yaabaa in gabar ku sifowda laga helo caalamka waa macquul ay dadku qaarkii leeyihiin in uu jiro ama ay jirto gabar shuruudahan buuxin karta laakiin waxay u baahan tahay in la geliyo waqti badan si loo raadiyo baraha bulshadana in badan lagu baahiyo waraaqaha uu soo dhigay Dr. Zahir Naik haddii aad u baahan tahay wax faahfaahin intaa dhaafsiisan aqriso shuruudaha warqadda ay ku qoran tahay uu diktoorka soo dhigay haddii aad saacidi karto diktoorka oo aad u helayso gabar shuruudahaasi lehna waxaan kaa dalbanaynaa sida isaga uu naga dalbadayba in aad la xiriirtaan isla markaana aad u gudbisaan intaa ayuu iga egyahay muuqaalkan dib intaynu u kulmi doonno samee salaamo nabaadiino salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu